أوانا صفة على ذيدني حدث أوانا صفة على ذيدني حدث النتجور ذيدني وسيدي يتوبنك ميدها وميدينو سماتي حتى سكشان كدعيو حتى سيبي خلطك لو قلي حتى مر لواد بلو صحي حتى صون قلنا ميني حتى كيسو غاية يو سميري حتى كيسو غاية يو سميري حتى كيسو غاية وزارة هرمرنتا iyo khayraadka biyaha oo iyaguna boorkooda halka ka muuqdo aad iyo aad u mahadsantiin sidaas ku muujiseen sharafta iyo karaamada leh iyo sida quruxda badan leh ee aad soo labisateen ee aad ugu diyaar garoobaysaan maalinteena ugu weyn ee qarannimadeena ku weyn ee ciideena ah ayaan aad iyo aad ugu hambalyeeyaa waana maalin qurux badan si aad ugu diyaar garoobaysaan waxa wasaaradda horumarinta biyaha iyo khayraadku ay qayb laxaad leh oo ugu horeysa ka qaadatay boqolkii cishe ee dalka ee xukuumaddan cusub ay hogaaminaysay waxay noqotay number 1 bay noqotay waxay kaga qayb qaadatay 230 ceelal riigag dhaadheer u badan iyo dhaamam waxaan doonaynaa boqolka cishe soo socdana inaan qayb laxaad oo kale kaga qayb qaadano haddii Ilaahay ka dhigo wasaaradahan qaybta biyaha iyadoo laamahayga oo dhan ay u wada diyaar garoobayaan maantana waxaan ugu horeynaa oo ugu fiicannahay oo ayna jirin waxaan ugu la tartamayaa wakaaladii biyaha ee Burco iyo wasaaradii muujinta ay isku muujiyeen ee dalbaadega ay u dalbaadegayaan Eedin May oo aanan wali sidan oo kale meel ayna uga dhicin dalka Soomaaliland shaqaale sida u tababaran oo u diyaara oo u qurux badan oo u labisan oo u diyaar garoobaya maalinta Eedin May oo number 1 dalka yaana ayaad ka tiin oo ka mudantiin number 1 waxaan rajaynaynaa waliba haddii Ilaahay ka dhigo inaad noqotaan maaha Burco Soomaaliland oo dhan shaqaalaha number 1 ka qaada haddii Ilaahay ka dhigo maalinta banaanbaxa ay inagu weyn ee Eedin May waliba doorkan waxa dheertiin Ramaax oo dadaalkiisu aanan fadhigu ku yar yahay marka hawlahaas ay socdaan ay tahay ciyaarihiisii oo aad iyo aad isaguna qayb laxaad oo uga qayb qaadan karana waad hesheen waxaan ilaahay insha Allah ilaahay Eedin Mayda soo socotana ilaahay iyadoo sidan ka qurux badan oo layna aqoonsado oo xaalad ka farxad weyn aan ku jirno ilaahayna gaarsiiyo aad iyo aad baan u mahadsantiin wassalaam